موضوعي وحوها موضوع خطر أو كوسابسن في أمة مركي الرب إن لبت باديو أمة مركي إن لبت بادينا وحلاقة بادية فردي قال لبت بادي قف كمركه هرا ولذلك يوم القيامة كوح جنة الجليس مجرم فرقة الناجية مركي لله لما هي فرقة الناجية وجرته والله كوح جنة الجليس معها وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قيامها إلهي كل جيس إنك أتجا كوح أتجا نصوصكم صو أرورين مركي قفك فردي إنه أستوسيو أياه وحكوحجا إنه قفك أسرة للتوسية أنا هالكان وحيابها أمر كست حجة كديجانو أنا هالكان محاوب صو عررني وحواي علمي يا لوجود بعدين يا عرورتي يا لوجود بعدين يا ريرك يا لوجود بعدين لكن مشكلة وحا مركو ريرك الدمو مركا عقبة وين هالكان كدعد يوروب أنا ريسيرش جان كسمي لبا عربا دينا ويقود عذي مدو يقود عذي أنا يريد جور مرهبان جور كو سنة الزواج من سنتي ninka dhalinyarada wuxuu rabaa inuu sida dhaqanka gaalada iska yeesho oo inuu ilmo dhalama rabo inuu guursamo arka maxay yeelay guurku wuxuu arkaa mushkilo uu arkaaba guurku mushkilaha cibaado weey guurka nabiga kaleey salaatu salaam anbiyadii oo dadka laga salagta gareeyay ayaa waxa la sunnadooda ay tahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala inay guursan loogu tala galay marka guurku waxba naga haasto yurub marka ay maan dhalinyaradina way shaqeystaan jaamacada ka bixin jaamacadaha ugu qaalisan oo gaalada iyo kuwa kale ka baxayna ka bixin waxbarashadooda fiican tahay noloshooda kale successful way laakiin guur uu soo jeedo gabadha sidoo kale walidaalka صدن صدن afar waa si socdaan marka waa daahira waa mushkilad jirta maxaa u sabab in la darsawi daraasaadkaas la sameeyay marka daraasaadka marka waxa daraf waxa ka ah guriga dhinac waa ka naho dhalinyar qaarkood waxay ka dideenba markay arkeen guriyaha dumaayo oo dumaayo inay islaan guurka dham saas leh u maleeyaan warkuurka saas maaha ilaahay subhanahu wa ta'ala haduu aabaha gurigiisa dumay macnaha wiilka gurigiisa inuu dumay maaha oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkaas wuxuu siiyay wala tasru waziratu wasra ukhra waliga ban dimbi kale ninka looma qabto marka in fikirkaas la bedelo oo ah ko warguriyahan dumay inay dhalinyarada ay ka sasaan walaalika nabiga kaleey salaatu salaam dhalinyarada guurku kala dardaarmay fiiri waa dardaaran nabiga kaleey salaatu salaam ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj maxay dadka xumaan guurka inuu dib leeyahay laakiin waxa ka daran dibku celinaa ka daran walaal afar dib uu sheegay nabiga laba dib uu isku xiray laba dib oo khatar ah dhalinyarada guursan ee ku dhacay inuu sheegay ciladna waa raacsi xadiiska wuxuu war dhalinyarada ninka guur awoodo ha guursado faman lam yasal ninka awoodin marka oo maalkii uu ku guursan lahaa ama wuxuu isku ratabi lahaa aan go'oon wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu salaam horta ciladii uu sheegay wuxuu yiri fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu al farj war dhalinyaradayna anaga jaamacadaha ka soo baxay gabdhaha ahada am wiilal mushkilada haysato waxa way hatta uqda nafsiga qaadeen guurka waa tasliim weeye shahwaadkan ilaahay ku abuuro gabadha haduu dhiig ku dhicin xeydka oo bisha ku dhacay haduu ku dhicin waa jirnaysa cudura ku dhacayo wiilkii gabadha markay qaan gaaraan ee socdaan haday shahwadoodii xalaal ay ku bixinin am xaraan ila aadayeen waa ciqaab way ama way isku celinayaan dagaal ay keenaysa gabadha wiilka dagaal odayga wiilka caasi ugu noqdaa li caasi maaha shahwa gubayso gabadhu waxa leeyahay caasi naqadsaama aan jirin shaba guuys maxay dowradan silsiladan socoto ilaahay waxba ugu tala galay laba xaal way hadii gabadhay wadaad tahay markuu la celiyay ama wiilka wadaad yahay wadaadka marka qaylo keena wadaad badan ajiro masaajidda joogo dhalinyaro way ma guursanin maanta masaajidka dhibay ku hayaan buuq gelinaa dadku waxay u maleeyaan wax kale haya haduu guursanayo buuq waa jooji lahay marka guurka halkaas waa in la helaa maxay yeelay waa sunnatul xakoon way سنة إلهي سبحانه وتعالى الزواج من سنتي وي دينت أرنتاس يورب دب وين أنا جهستنا قبل وين أو جورسنين ويل أو سيدو كلا وين هذا أن جورسنين ما حسبه ولذلك حسبه أسبابه حكمه إن لقالي جورك ورجورك يا القالين جورك هذا اللي قالي قبل أن نكمل جورز على أنت سبحان سانكارا ولا نير ورجورك أسجع خين له نبي وحنا شيخ عليه الصلاة والسلام جورك وحول الفقر وضدك كبحياء حديث هذا حتى فقر أقول جرت الداء قرصنا إلهي فرج وفريا نصف الدين وين دين النصف كذا لما يصير استمر كجورس دي إذن جورك قال أهل تيسو قبر كرتو حيرتا مهر كين تاسا قريجو هوتيل اللي قريجو حد وحابنا قال بنقدت كين الدين يقاني وحاجيبه أنت محاضرة عن سأل سمينا يا علماء دتك إلى هذا ليان هذا جورك أرميس وحنوقات كذا فنانين تنوقات كذا وعلاد جرت وعلاد العيب فينا مركا أنا قلت ذلك قبل عن حجابا إني كأت كاتو قبل عن حجابنين أو مهبين قرصنة حجاب كلا قدي كور ولا هل هبين الله ذا كاله والويس الفنان هم ما كهيسال اللي قرقاق قرش كاسل وبحنايا إذا وأنا لقيت كهذا مركا أنا قرنا مركا قلنا الله إنه هذا دعاء النهاية
dadkeena dacwada ku jira ciladaana haysata maxay tahay cilada maxay gabadheena xijaabna hadii aan intaas xijaabku ilaalinaynay oo maalinkii arooska habeenkii arooska laga dhigayo oo arooska diinta laga leexinayo oo wiilka dhahay wallahi arooska meeqa ku baxda 10 kun 20 kun 100 ku baxda dhahay wiilka kale miskiinka ay guurka ay ka caraysiisay oo guursan karin oo deen loo galayo dad arkan guurka deen u galay wuxuu leeyahay dadka kale iska dhici ma bilaa nabiga kaleey salaatu wasalaam guurka wuxuu ka hadla fiiri laba shardi ku xiray wiilka gabadha la siinayo ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawjuhu oo yiri bas ninka wiilka akhlaaq ma leeyahay maxay akhlaaqda waxa weeye shay macnawi lama heli karo waa nin akhlaaqda waxa kamid konton way akhlaaqda kontonkaas meeqo ka haasta digri meeqo qaada boqolkii 30 uu qaata 20 uu qaata laga fiiri way akhlaaqda waxa rulo ma yahay oo wax ma yahay nin dulqaad badan ma yahay oo wax ma yahay nin wax ma yahay oo kariim ma yahay mas baqiil way baqiilnimada waa mushkil rag baqiilinta maanta lacag aruurinayo oo dumarkooda xaasaskooda wax siinaynin waa ka deeri islaamku waa ka deeri idan mas'aladaas janibkaas waxa leenahay warguurka hala raqiisiyo hala badiyo guurka loo seminaaradaas laga qabto community waa ku waraarujinayaan inay qabtaan dhalinyarada isku keenaan oo la hadlo maxaa yeelay waxay kamid tahay waxyaabaha ummad ee horumar ku gaari kartay kamid tahay hadaa laakiin aad dhaqan kale aqaadanaysid waa mushkilo weey anaga islaamka la yatajazza udkhulu fi silmi kaafa saas al raba islaamka oo soo dhameystiran ala qaadanaya laakiin qayba ka qaadanaya qaybna ka tagaya ma waxaan leeyahay marka jaanibkaas waa ka haysta waa naga haysta jaanibka kale qoysaskii noo dhisnaa burbura marka qoysaskii noo dhisnaa laftigooda maxay ku burbureen maxaa maanta single mother-ku waa badan yahay maxaa badiyay maxaa kaas laftiisa waxaan idhi wuxuu sabab u yahay dhalinyaradu guurka celiyay marka research jara sameeyay ma ani ahadiis iyo manigu dul akhrinayo waxa aan research aan sameeyay asbaabaha qoyska dumi iyo cilaajkooda wax ka sheegaya kaliya maxay ummadda haday rabto inay hagaagto koo waxa asal ah inay adka waxa leeyahay urifa sabab batal alajab idahan hadaa sababta ogaano aan soo xasuusin ala aqal sababaha guriga ku duwanana waxaan u qaybay afar qayb guri kasto duma afartaas qayb laga helaya waa wax waaqic laga soo areeyo idinkan su'aalaha ka soo dhiibi kartaan koo waxa u bixiyay asbaab daakhiliye guriyaha waxa dumiyay asbaab gudaha ka dhaco oo gudaha marka ka dhaxay gudaha guriga gudihiisa ku nool saddex koox ku nool guriyaha saddexdood daraf ay ka noqdaan guriga dumiskiis koo waxa ku nool oday guriga iyo islaanta xaaska iyo caruurta saddexdaas koox asbaab daakhiliye u bixiyay waxay sabab ka yihiin guriyaha wax dumiya ay sabab ka yihiin cilaajkooduna waa sheegaya sidii ku dumiyaan waa ni sheegaya wali sidii ku dumiyaa ilmaha sidii odayga ku dumiyaa guriga sidoo daraf ugu tahay hooyada aan sheegaya ka digtoonaada markii sababta lagu sheego inaad ka ninkii gafkaas ku dhacay hadda ka soo laabto dog soo laaba karo waxa yeelay guurku waa nicmo weey cid kasta ma heli karta marka nicmada ilaahayna ku ifraad ku sameeysa xanaaq yar ku dumisa ama islaanta wax kasta sahal iskaga dumisa ma aha maxay ummad ayaa taagan halkan ummadan ayaa bilowgeeda halkaas ka dhismaya qoys kasta doo dhismo waxa weey ummad way badbaadaysaa كو أسباب تكلو حب أسباب اقتصادية نقالة أي جوريها دوميو economic إنسان دور سي نقالة دوميا كو وح دوميا طريقة وذكو صوب قالوا ما رأيك لقارو قصو قرقور إنه كدومي ها وانا عظي واني شيء أسباب تيس وحكلو كدوميا طرق سيد الله استعمال العقد لبحي وجورك بحسك معناها وح استعمالك العقد استعمالك بدن جورك دوميسي أسباب تكلا سدحات وحيد هاي أسباب خارجية وبحي أسباب تجودها دي سدح هايين أسباب تانا نقالها الله وكل قيبي أسباب تا أو بنان كأجرته أيضا وحيسو جليسا وحكمه أهل كزوج لبضع أهل أي قبا لبضع جورسة فملك أهل كود الدرف كيهم جوريها إن الدميان بعلم وبدون علم شرط معها مجرى غير كيس دومينايو لكن عن جهل يلقى الدميان أنت بطن كسلوا من دميو وحكم ده أسباب خارجية جيرانك درسك ترى يعني شيء ترى كوب واقع أنك الله إنه أرقني أو أنتوا بدينك إنه أسكارك كرتان درسك جيرانك جورج الدميان قاركود أما علمها الدميان أم علم الدميان يجوا هات أما كم أما كسرت وحيرتها ودعوا
أسباب تكلو حوي أسباب الاجتماعية أسبابها يوروب نولا شهادة ودمدان أكون نولنا هاي الدرف كيهين محي البيئة ذي أنا وحالي الإنسان ابن بيئته وي أنا برشدان أهل كان كنا نولنا هذا لكن كذا أفهمين جورو ودم يا جورو أسباب تاس مركا وحكمية مركا لكن ككمية سيلرس كنا نولنا أيو وي ستايل كنا نولنا وحسنا يا سوقلاء وحنقول لقانا يا مركا أسباب تكوات أيام لابنا يا أنا أسباب تجودها وحكي بالله بيا ninka guriga soo ku dumiya odayga guriga nin gurigiisa dumina ma jira ha waa dumiyay koow waxa weeyna ragga markay Yurub yimideen waxyaabaha guriga ka dumiya waxa inta ugu badan asbaabaha way badan yihiin laakiin inta rag ugu badan waxa waa cadam al-akhdh mas'uuliyya mas'uuliyada guriga ku carara mas'uuliyadaas ilaahay ya saaray diinta saartay ma gabadha inay saartay wuxuu u maleeyay mas'uuliyada gabadha inay saartay markaas oo limaada ay xukumi kara maada ay tali kara والمسؤولية قبلكم الصارين وحكوا صار إلهي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راعي في بيت أهله ومسؤول عنه النبي عليه الصلاة والسلام نينك وحال ويدنا يقول والله صلاة السنين الويدنا يصون كسانا الويدنا ما أنتنا صفف صلاة بوحنا هو صون كواصلنا ما أنتنا صدقة بحسنا سيد وحسنا الويدنا حاسك قبل الويدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالويدنا قبل أن رأس سكر صدينا الوجوس ورجيه مسؤولية إلى تر وذلك قوامة الرجل الوجودي مع تشريف معنا الإله الرجال قوامون على النساء وإلى القرآن من كوجري مفسرين عليهم القوامة ليس تشريفا إنما هو تكليفه ما إن كفى الله بنتها قبله لكن التكليف والقصة عري أود إلهي وحكوسية لبع الله شيئا كذا شيء بما فضل الله بعضهم بعضا ما حد داعي جورج هجان كعزمي وبهنيه يقان أذو وبهنيه marka ragga ilaahay waa ku kala abuuray dumarka go'aankoodu waa jircan yahay ilaahay saas ku abuuray walaalika gabadha rabto oo nimay iska dhigato gurigeedu waa duma aydan nimay maba loogu talagalin waxa ilaahay u dhiibinay ay soo gashay ma xamili karto cadfi leedahay uura loogu talagalay ummad dhan ay dhalaysa waa hooyada ya lawla dumar ahaan adduunka ma jireen حاول مركي آدم لا كل يسلا أبوري أو أسقل أبوري وحير أنا وجيفه وحير استوحشته كل نوع دري موير آدم الإمام أحمد حديث مسند وقصو أروري مركي سافرتي مركي حاول قد يلعب وحوليه وهو يدي وحير من أنت وحيتري أنا وحيتري وحأذيق عليك أبو رباني فيري قبل الشقة هذا حوانين كاسنيها جاجسون حيالي نم وناكسن دائرة جبرك الضبيس وناكسن أيضا ولا القلوق وحيت القلوق تلك أذيك عليك أبوري مركز هذا وحمل إسلام كإسلامكم ملكي وقما رجع قاركود أنا عليك أبوري ملكي وقما معها إن الله ذهب معها ولذلك إلهي سبحانه من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم فيري إذن كان لا أبو رجع لليه محله أبوري وشقيقته وكلجا مسعون كرجع كلجا السعودة مسعون كرتلا قول ما بجاريه حتى نينك كلجيسه ولذلك نينك الضوب كهوان قرصنين وحوي أمانك سلقوا ما أمين كرو محيا القف ولا تشتو أو جوجش لا تجو أو مستشار هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أركع حيران تعال عبري فيري أباهي هو يدي دلنا نركي لقى مدقين وحجر كي وحوده وطابن كرو نركي وي أيضا نرى وأيضا نرى وأس السرنان إذا لكن عبت أنا مركي السوشيال ميديا تماذا ومش أصعد مش أصعد نبي وعليه درجة فيري درجة إلهي بني آدم قارسيو أو وين محاوى إلهي قفك أو قارسيو درجة وين هذا أو إنسان قف بني آدم قارته واحد يعني سؤال شخصي ويجي مع ديزين أدونك نبي نمو مال معها ما تحت البقر ما كله درجة ورث حواء إن إلهي ملأ النبي كاديكو استفاهم الله إلهي إنه ضد كأن كاد دورته وهذه الويرة مصطفين تكمتها إلهي يقود دورة النبي ياتهي لقوا يرى درجة وين مالها نوم مسلم من يبقى أتي مدالير نوم مسلم من درجة اللي جاري هذا أنا قبله شعيب مركو يمد نبي موسى مركو قبله شعيب أو ورابي عيلك أو ورابي محوجري جات كوسيس مكو فرس محوجري ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ويري إلهي وحك السقير عيسيسو النبي لماذا يقول رئيسه ويلي أنا فقير قبلها صدارك معنا قورة يقدمون شعيب الله صور الرباح مركو عليه قبلها وتري وجاد إحداهن تمشي على استحياء كذا هذا حق على صور الرباح مر
إلهي وبريي إلهي أنا فأرنت أنا فقير قوي وحوا يقدميها مركز رب نعمة هل كان مطالع ولا أنقرسني الله يبنا أنا نين من وحولي أنا فقير أدا قرصن فقولي وحوا يقدمنا مركز أنا يرفضي وأنا كعذاوي قورك وأسروني الله هبقينا إذن أسباب تمركب وحوي مسؤولية دات قاضي هدات قاضي ويسد أدوغان ويسد قبل أن نقول وريجي مسؤولية دي أدوغان ويسد إنه تاي مسؤول أكتاهي قرق وأبر ولذلك رجع فد كردير كيس كفدية أو مالها إسكوريجو مسؤولية قاضيين أو ملاي قبل إنه كان وحكول يوروبان كان إسدبرة قال هذا كم صوفته أسجع إنه شقي أنا من ولذلك شغله ما دونتا أو أنا ربين إنه إسكسر صعود الربو قولي هو ذوات دومين كواس قبل مركور وقت كيسة مسؤولية درد وحكاك درد أسو مسؤول هاي الربع نوع عنات علمي يقولوا ما محاسميس ما حيش ولا محاسميس هذا قلت قولوا عدم مسؤولية قدام رجوا هذا ربطان تكليفك إلهي نسار داك صوب حدان قولوا جنوا هجاجيا لبا وحكم إذا أسبابها الرجل يقولوا قدوميان عدم العمل ننا بشقي الناجر وعير لقات ما بشقي بينه شقي مرة ما تنام حكول ليه فومو كدوريجا كوميونيتياشو كدوريجا واجرنا هاي وقلل جري لقوا يحنون يسو ساسان هاي ويلي جيس وطن كم شقين سو قلي وريله ساسو هو مدرجن إخواني والله عملك هو شرفوي وحن أوجاني استاتيس مركز سمين رجع شقي يقولوا هذا وكبد بعدين رجع عن شقيين رجع عيرت الإسقاطه وما تنام حسيجا وإنه إسقف يستربوا وحن ما تنو بين الشيء أيوم حنا بين الشيء وصو شقي كرو أنا ما شقين كرو وصو جرين وهو جرين هذا إلهي حاسك يسوق صوص الذي وما أصابتكم من مصيبة إلهي محولية فبما كسبت أيديكم إذن عاش قلا أنت وحيكون كأنت إنه جرو قدمه مركي قبل يكور تاجي أماني كستو بس بحيا بارك نفريسنا ماشى نفريسنا رينج بميلان وكشكينا جرو كنا قنيا ورقة مصود عذوليمات ورقة صود عذ السجا ورقة قاركود ما بكنحة مركي جوابت الأوكي وحكم إذا وحعجيبه واجا صحيح بدناجرتي هذا مركان سميني استاتيستي كذا وحارك دتك أو شغلة أنت ودتك أوهري يرصق علي يكون بدن لكن هذا وقت إذا دم بوحاسب بحذي قولوا واحد دميو كثرة العمل ليش شقد يسبضن تقولوا قدوم حتى بارتان دبا سمين هذا ويريهن دتك كشكين أيو ويرانا محاسب بدن أيو وحان أرجني نين أفر إلى باتن كساع شقية قولوا الماء كورهين بو في إفراد تفريد ولا أقوله قولوا إنا فرد لهم أقوله وشغلان قتيد هذا إنا شقة وديع يقول لي شيخ أنا وحنا كشقية هل كاسة حق قبا وبرام وذا بسكوك صوتك ترين كو وذا ما أنت نعذيك غير يوم قضيع لا حقي أو جروب مسؤولية اسمه يقان ودالين هذا نين دالن وابا محق بكرة ورتساس ما يا إخواني الماء الوقت لسيوي مسؤولين وعروتان عروتان أبوه يهوي ذا دنيا عرفتان في قرة الأعين وين ده حاجة جروب أجوكت والله ما المها هل كان فردان هدات اسكفر يستان جروب اسكفر يستان الماء نحفر يستان عبادة كجرتان أنا هذا كوارك أركت هذا قليل كوارك يعني شقلاس بدنا مشكلة سبدو شقيا أحد وشقيات بس وراء ما تنا قبل إيش سؤاله ويدينا كمتى قبل إيش سؤاله إنه ويدي حوي شقوا شقينا كان وعكسوا بحبوركوا كشقيا مية أنتم كانوا كدجا ورديو قليا لا جدولك أعمالك قدر مسؤولية هل كان كتها إلهك ويدينا مرك كثرة العمل شقة بدن في العقد محوص ما يساعدك horta lacagtii uu qabanay su'aalaha tal ninkii yimaado wuxuu ku leeyahay yurub maxaa ilmaha u haysa wallahi ilmaha wax barta ilmaha daraado tayib lacagtii maxaa qabanay caruurta meel war caruurta hadii lacag wax u tarayso tarbiyada awlaad lacag la meel loo dhigi guri loo gado ma aha lacagta waa iiga ka qiimo badan dad lacag waxay ku bixiyaan inay ilmo dhalaan mogtiin taas malaayiin bixinay ilmo ilaahay ku siiyay markaas lacag meel u dhiga war lacagtaas waxa loo shaqeeyay iiga ma aha asalkayga ah walaalka asalka ka naga qaldamay قاضب كاس وحوي قاضب كاس وحوي الغياب الكثير رجوا حاجة إسكت سفرة علمي وويناد وضيع الله مرت علمي وكورن رج بعضهم هل كان جوج جرات ويدي وحالي روا سفرين عليه وذا دو سفر حقنا كلو قرصنا ولا سكيقة ما مشكلة كله إذن رجع إسكت سفرة قارب الربان كنا جوران
من برلمان أنا كبرلمان يجينت أو صوماليا والله عيبت وضع أنا هاينو لكن إلهي درت أو قرنينا المهم هذا قاركود حبس يكون جيران ده نقان أنا وحكله أمده هجاجينا ميكروفون ونسوق هذا يا أخي فاقد شيء لا يعطي والله يدعى عاود متى لو ما هايو دولة الإسلام محاول السويس ولا دولة صوماليا محاول السويس دولة صوماليا إلهي حكوكم مشغولي أو ضد قربي كون الويدنيا كلكم راعي محن ومسؤول عنه هل كاسو فديا وكم مقيا اسمي علمي وحو dadku ugu sheekeen marka nin fiican inuu yahay wala yaaba ku wasan nimanka wareerkaaga fiir mamlak dawlad halkeen ka dhisan tahay wallahi dawlad ilmiye markay koraan ugu dhib badan halkan markay koraan mas'uuliyi weyn u sibaahayin oday oo ingiriiska nala joogo iska guursado ay sheekay mar islaamku guursaday islaamka ingiriiska waada Soomaali aad asaan soo guursanaa marka gabadhiisa maalin uu baray gabadhaha abahooda jecel yihiin markaas ay aaba ka warnaayay gabadhiya weeyday gabar weyn way wax baratay markaas ay aaba good dad way laakiin good husband maaha waaba kala saartabo abarteed xaq hooyadeed xaq ay siisay barkii waa guursadaa laakiin anaga waa fiican yahay tiri marka hadaad good dad husband isku noqon karto wax fiican waa هذا وايس قبل ناس عمل حتى حالة اللي هذا